shacabka muqdisho ayaa aroortii hore ee saaka waxa ay soo tooseen gebi ahaanba wadooyinka oo xirxiran isla markaana ay soo buuxdhaafiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sababaha rasmiga ah ee ka dambeeyay xirnaanshaha wadooyinka muqdisho ayaa la xiriirtay kulan uu maanta yeelan lahaa baarlamaanka Soomaaliya oo khilaaf uu u dhaxeeyo tan iyo markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay mooshin ka keeneen afhayeenka baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari saxaafadda muqdisho ayaa kulankaas dibad joog ka ahayd kadib markii lagu wargeliyay in aysan gudaha u gali karin baarlamaanka labadii dhinac ee baarlamaanka ayaa kulankoodu waxa uu ku soo idlaaday fawdo iyo natiijo la'aan kulankaasi fawdada ku soo dhamaaday qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanku waxa ay dareenkooda la wadaageen saxaafadda in maanta haday xildhibaano 197 xildhibaan inay petition saxiixaan oo petitionka ku dhahan gudoomiye waa kala noqonay kalsoonidii macnaheedu waxay tahay waa inuu ka dagaa waay marka waxaan ugu baaqayaa kana codsan lahaa odaytinimadiisa inuu seef garaysto karaamadiisa uu ku ciyaarin aqoontiisa uu ku ciyaarin uusan u horseedin shacabka in dhibaato ay dhacdo ama baarlamaanka dhibaato ka dhex dhacdo inta hadda dhacday baa ceeb ugu filan intaas ugu filan sumcad dil inta wixii ka badanna waxay noqonayaan inuu maartay sumcadiisu ay sii dhimato waxaan rabaa inaan mar labaad ugu baaqo gudoomiye Jawaari inuu si sharaf leh oo karaamo leh oo cisi leh uu baarlamaanka mar haddii xildhibaanadu kalsoonidii kala noqdeen uu ka leexdo oo uu ka dago gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cawad aad baan ugu xumahay codkaygan ku doortay labada gudoomiye waxaana doonayaa sharci inaan u maro inaan haddana cod aan kaga baxo ma ahana in maanta qori la keensado waxa laga baxay mar hore laga baxay cid qor u hogaamsan karta oo dalka ku qabsan kartana ma jirto waxaan ka raali gelinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan war xun yaan lidin sheegin koox yar oo wax doon ah oo naftooda kuraas u rabta ayaa rabta inay kuraasta ku haystaan dalkana ku haystaan afduub mana dhacayso insha Allah waxaan kaga baxaynaa inaan cod ku kala baxno dalkana waxaan rabnaa in lagu hogaamiyo sida xaq ah ee shuruudda ay tahay baarlamaanka ayaa iskale codka cid kale oo leh male xildhibaanadaad soo doorateen oo idinka wakiil idinka ah ayaa maanta meeshan taagan oo banaanka ka taagan baarlamaankii waxaan nin walbana wuxuu doon u sheegi karaa qolo kale hadlayso waxay leedahay annagaana la celiyay waxaas waa been gudaha dadkii galay baan ahay staafkii Jawaari baa aniga bistoolad ila soo baxay oo bistoolad i tusay saakay oo yiri meesha ma fadhin kartid marka shirka muxuu ka soconaa misxabadayna annaga dawladii iyo dadkii mar rabnaa iska hor keenno annaga u dul qaadanay dalkii oo aan rabna inay nabad dalku ku hogaansamo waxaana u dul qaadan mayno insha Allahna talaabo sharci in laga qaado way waxaan halkan kala kulannay in la afduubtay in hogaamiye kooxeedyadii qaabka hogaamiye kooxeedyadii aan ka soo tagnay in loo dhaqmaayo wuxuu la soo galay konton BKM ka badan wuxuu la soo galay 40 buskooladood oo dharcad ah maxay waxaan nasiib u yeeshay xildhibaanadii oo hoolka galay gudaha hoolka galay waxay indhahayga arkayeen in biskooladii geeska nagala tusinaayo in la qalqal galiyay laakiin alxamdulillah waxaan diyaar u ahayn in dalkeena iyo dadkeena aan u dhimanno waxa saaran halka gudoomiyihii iyo ciidamada maleeshiyada uu wato golihii ayaga heesta qaybta kore qoryay la saaran yihiin waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u macneeyo macnaha ay leedahay gudoomiyuhu inuu ciidamada maleeshiyada inuu intuu soo qaato uu golaha shacabka ku qabsadaan rabaa inaan idin macneeyo waa dhamaadka gudoomiye Jawaari waa saacadii ugu dambeysay oo golaha soo galo macna kale ay leedahay ma jirto Jawaari gudoomiye aan dhihine Jawaari hogaamiye kooxeedka Jawaari qabqable waxa uma yaalaan meeshan kor u saaran yahay wuxuu wataa qoryo iyo wax kasta wataa inuu maanta ninkan codka ku dooranay inuu qori daba jeexa uu yiraahdo waa ku haysanaya waa nasiib daro shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arrinkan annaga ayaa u taagan xalka Soomaaliya annaga ayaa soo doorateen annaga nagu kalsoonaada aad baan idinka raali gelinaynaa gudoomiyihii maleeshiyad buu ku haystaa taliyihii nimankii ciidanka u sareeyo saraakiisha ahaa waa yimaadeen way la hadleen ciidanka ka saar meesha yiraahdeen waana ogolaan waayeen marka waxa aad iyo aad arrin u adag ah gudoomiyihii baarlamaanka oo shalay codka aan ku dooranay maanta isagii inuu maleeshiyad aan sharci ahayn
uu nagu haysto oo meesha ku qabsaday maalmo ka hor wuxuu aad iyo aad u diidanaa oo ka hadleeyay wuxuu lahaa ciidamada la keenay booliska meesha oo dheeraada ciidamada laga qaado hadee shalay ninkii ciidankii sharciga ahaa oo ciidamada ahaa diidanaa maanta isagoo muxuu ahaa gudoomiyihii sheeganaya inuu maleesiyaad ku qabsado horta waa shay ayaan daraa annaguna hadda naguma u haysan karo maleesiyaad naguma qabsan karo cabdirasaaq aadan qoslaaye Kalson TV Muqdisho.